بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ay tahay bisha November 29 sanadku uu yahay 2025 waxa aan maanta ku qabanayaa anoo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka Soomaaliya ee xarunta guddiga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya aan rabnaa in aan soo saarno war saxaafadeed la xiriira jadwalka doorashada ee golaha deegaanka gobolka Banaadir insha Allah ta'ala. walaalayaal la socotaan guddigan waxa la aasaasay sanad ka hor waxa noo buuxsamay hal sano oo buuxda waxyaabaha naloo igmaday waxa ka mid ahayd inaan diyaarino qorshe ballaaran oo dalka lagu gelinayo doorasho qof iyo cod annagoo ka duulayna manhajka ama qorshaha guud ee dawladda Soomaaliyeed naloo dhiibay malafka ah annagoo ah guddi madax bannaan waxa aan bilownay inaan ajandaha isaga fulino waxaan ka bilownay inaan dadkii ururadii siyaasadda ahayd u furno saaxada oo ay bilaabaan inay isdiiwaan galiyaan waxaan ku xijinay in shacbiga Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Banaadir inay isdiiwaan galiyaan oo ay bilaabato waa noo soo xirantay waxaan hadda ku guda jirnaa qaybintii kaararka muwaadiniinta Soomaaliyeed kuwooda ku nool magaalada Muqdisho waxaan isku diyaarinaynaa doorashadii dhici lahayd golaha deegaanka ee gobolka Banaadir walaalayaal la socotaan kadib markii aan dhageysanay ururada siyaasadda baaqoodii ahaa in la siiyo time ay isugu diyaariyaan inay ma aragtay bilaabaan olole sax ah oo la xiriira ka qayb qaadashada doorashada soo socotay golaha deegaanka markaan fiirinay xuquuqda ay asaasiga u leeyihiin markaan fiirinay dalkan oo muddo 57 sano ka badan ku dhawaad 60 sano ayaan doorasho ka dhicin qof iyo cod oo rasmi ah ka dhicin gobolka Banaadir markaan fiirinay wacyiga dadka oo u baahan in time la siiyo markaan fiirinay xaaladaha guud ee dalka ka jira waxaan isla garanay guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka in aan bisha December ee soo socota 25keeda ay noqoto maalinka magaalada Muqdisho dadka ku nool ay u dareeri doonaan doorashada golahooda deegaanka oo 16 degmo ah insha Allah ta'ala waxaan noo diiwaan gashan 61 urur dhammaantood waxaan leenahay fursada iyada ka faa'iideysta waxay ahayd in 30 bisha oo bari ah inay dhacdo doorashada waxaan u furnay waxay ahayd cabasho iyo ma aragtay garnaqsi ka timid ururada siyaasadda oo ay duruufo adag ay ku gadaameen qaarkood annagoo taa ka duulayna ayaanu go'aaminay inaanu 25 bisha soo socotay December sanadkan aan ku guda jirno 2025 inaan ka dhigno maalin gobolka Banaadir insha Allah ta'ala ay ka dhacayso doorashada golaha deegaanka oo dhaxmari doonta 61 urur siyaasadeed insha Allah ta'ala waxaan ka codsanayaa shacbiga Soomaaliyeed ee gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Banaadir marka hore waxaan uga mahadinayaa dadaalkii faraha badnaa ee u galeen inay xuquuqdooda dastuuriga ay leeyihiin oo ah inay waxna dooran karaan lana dooran karo inay line dheer u galeen xaafadaha iyo degmooyinka magaalada Muqdisho waxa isdiiwaan galiyay in ku dhow ka badan 900,000 oo qof waxaan ka codsanayaa inay u dareeraan inay kaararka rasmiga qaataan insha Allah ta'ala kaararkaas waa kaararka ku codeyn doontaan kuma codeyn doontaan kaararkii kumeel gaarkii la idin siiyay waxa ku codeyn doontaan lafta adag oo kaarka ah oo hadda aan bixiskeeda wadno inay xaafadina ka doonataan waxa idin soo dhici doona taleefano tax message waxa idin soo dhici doona qof idin soo wacaya all waxa u baahantiin oo dhan la idin sheegi doona goobta arabta inay kaarkina ka qaadataan dhammaan 900,000 dheeraadkaas qof oo isdiiwaan galiyay gobolka Banaadir